Assalaamu calaykum. Badanaa waxaynu maqalaa qisooyin jacayl oo la yaab leh oo soo maray taariikhda aadamaha sida Cantar bin Shadaad iyo Ceebla, Qays iyo Layla, Romeo iyo Juliet iyo qaar kaloo badan. Balse maanta waxaynu ka hadli doonaa qiso ka duwan qisooyinka hore laguna tilmaamo inay gaadhay heer wali, sidoo kale ay gaadhay heer bani'aadamtinimada ka baxsan. Waana qiso dhab ah, mana aha mid khiyaali ah oo la sameeyey. Intuu fiidiyogan socdo ayaan idinkula wadaagi doonaa qisada oo dhammaystiran. Daawasho wanaagsan. waxaa jiray nin lagu magacaabo Count Carol van Cosel. waxa uuna ahaa dhakhtar Jarmalka kuna takhasusay tiknoolajiyadda raajada. sidoo kale waxa uu aqoon dheeraad ah u lahaa xagga caafimaadka. waxa uuna dhashtay Carol 8 February 1877. sanadkii 1922 ayaa waxa uu guursaday gabadh lagu magacaabo Browse. waxa ayna u dhashay 2 carruur ah. inkastoo uu guursaday uu carruurna dhalay, haddana muu ahay mid iska daayay qarowga uu lahaa ilaa yaraantiisii. waxa uu ahaa mid yaraantiisii habeen kasta ku riyooda riyo cajiiba ku soo noqon jirtay. waxa uuna mar kasta riyada ku arki jiray gabadh qoyskooda ahayd oo dhimatay beri hore. waxayna ugu iman jirtay riyada iyadoo ku leh, Carol, maalin ayaad la kulmi doontaa gabadh aad u qurux badan, lehna timo madow sida madowga qudurka habeenkii oo kale. gabadhaas waxay ku lamaanoobaysaa nolosha, waxayna noqon doontaa jacaylkaagii kuugu horeeyey kuuguna dambeeyey. markii dhowr sano ka soo wareegtay 22 Abriil 1930, Carol waxa uu u safray Mareykanka si uu uga soo shaqeeyo mid ka mid ah isbitaalada waaweyn ee waddanka. waxa uuna kula kulmay isbitaalkii gabadh haysta dhalashada Mareykanka balse asal ahaan ka soo jeeda Cuba laguna magacaabo Maria Alina Milagro. waxa ayna isbitaalka u timi si ay u marto baaritaano. markuu eegay xaggeedii aad ayuu la cajabay. waxa uuna nafsadiisa ku yidhi, waa iyadii gabadhii timaha madoobeed. riyadiina waxay noqotay mid run ah. waxa uuna go'aansaday odagii inuu dhinaceeda ahaado. haddaba arrinta murugada leh ayaa ah in shaybaadhka ay gabadhu martay natiijadii ka soo baxay uu noqday inay qabto xanuunka qaaxada. xanuunkaasina waxa uu ahaa mid xilligaa caan ahaa oo aad uga faafay dhulweynaha Ameerika. qofkii laga helaana uu u dhiman jiray. Carol waxa uu ku dhawaaday heer wali. waxa uuna shaqaynayay habeen iyo maalin si uu uga daweeyo dariiqada ugu habboon ee ay bogsan karto. balse iskuday kasta uu sameeyey waxa uu ahaa mid guuldaraysta. waa ayna dhimatay Maria 25 Oktoobar 1931. Carol waxa uu ku bixiyay qarash badan aaska Maria. waxa uuna uga dhisay taalo guriga waalidkeed agtiisa laguna aasay meydkii. waxa uuna maalin kasta booqan jiray qabrigeeda kuna dul ooyi jiray. muddo 2 sano ah markuu waday, safarkii ayaa ka dhammaaday. waxa uuna go'aansaday maalintii dambe xaaladda uu ku sugan yahay u bedelo xaalad kale. Carol waxa uu ku kacay fal bahalnimo. waxa uuna soo faqay meydkii Maria intii ka hadhay. waxa uuna geystay guriga. waxa uuna soo diyaarsaday maryo iyo xadhka adag si ay isugu hayaan lafaha meydka iyo maadooyin kiimikal ah si ay uga ilaaliyaan urta. sidoo kale waxa uu soo qaatay timo madow una suray qoloftii madaxa. waxa kale uu soo diyaarsaday maro yar cad oo xariir ah si uu labis ahaan u geliyo. sidoo kale waxa uu samaystay harag samays ah una geliyey laabta iyo wejiga iyo indho quraarad ah. waxa uuna ahaa mid daryeela meydka muddo 7 sano ah. sidoo kale waxa uu ahaa mid ag seexda una sheekeeya. sanadkii 1940, Florinda oo ahayd Maria walaasheed ayaa maqashay in Carol uu guriga ku haysto meyd. waxa ay nooga sheekaday inay tahay meydkii walaasheed dhimatay. waxa ayna go'aansatay inay u soo dhacdo guriga. waxa ayna aragtay arrintii cabsida leh uu ka kacay ninka waalani uu ahaa mid haystay meydka walaasheed muddada dhowrka sano ah. Florida waxay arrintii gaadhsiisay bulshadii deegaanka deganaa, waana la soo qabtay Carol. waxaana la sii mariyey baaritaano maskaxeed. waxaana dhaqaatiirtii xaqiijiyeen in Carol caqligiisu dhammaystiran yahay. muddo yaroo kooban markii uu xidhnaa ayaa la sii daayey, uuna iskaga haajiray magaaladii. waxa uuna geeriyooday 1952.